السلام عليكم مقال كان isaga waxaan kugu bari doonaa haduu Ilaahay ogolaado casharka labaad ama fikradda labaad ee aynu ka faa'iideyno buugga loo yaqaano Still Like an Artist tuug noqo sidii qof farshaxan ah muqaalkii kan ka horreeyay waxaan ku baranay waxa loo yaqaano inuu qofku wax soo xado oo xatooyo uu sameeyo xatooyo edeb leh oo wanaagsan inuu sameeyo inay tahay halka laga bilaabo hal abuurka iyo maskax urinta iyo waxyaalaha fiican ee qofku maskaxdiisa uu ka soo saaro qodobkan labaad ee ninkan qoraaga inoo sheegay waxa weeye waa qodob kale sugan runtii aad iyo aad u muhiim ah waxa uu ku leeyahay sida tan ha sugin inaad ogaato cidda aad tahay si aad u samayso wixii aad jeclayd inaad samayso bimacnaa wuxuu ka wadaa marka aan maanta doonay inaan wax qabto tusaale ahaan kale Axmed wuxuu doonayaa inuu noqdo qoraa weyn oo wax qora ninkan Axmed halka uu taagan yahay waa xaalad halka uu ku socdaana waa xaalad kale ka duwan oo ah inuu noqdo qoraa aad iyo aad u weyn oo dadku ku qadariyaan qoraalkiisa haddaba dadka qaar baa fikirkooda iyo maskaxdooda waxay geliyaan in ay ka fikiraan maxaan ku fiicanahay hibooyinkan leeyahay waa sidee talo maxaan qori karaa waxyaalaha noocaas ay ku fikiraan qodobkan marka wuxuu ku leeyahay fikirkan badan inaga daayo toos shaqada u qabo oo bilow inaad wax qorto ha sugin inaad khatar noqoto inaad isbarato inaad kartidaadii awooddaada barato si toos shaqada u qabo bimacnaa buugii qalin soo qaado qoraalka bilow YouTuber بدون سوسوين نقطة هكافكر محن كوفي يعني بلا بلا كاميرا سوق هذا موبايل كذا فرو هذا لو شيء واحد شيء ديس نينو حتى يتصل هنا كله واعده وانيدتك شغال توصل بلو سيدا وكيد هكو وقت سيجن حوكي أوده هكو دول ضمين إن تكفكرتو سيدا تهيو وده هتلاقي يعني ما هنوع عسى شغال توصل بلو بكلي وحنو كل شيء يا تذكر أنت بدن هالأبور كاهي ما تشيران waqti ay runtii ay siiyaan arrintan iyada toos ba shaqada u qabtaan maalin walba waxay ku dadaalaan iyo bil walba iyo jadwal kasta iyagu dhigtaan ana dhahdo maalin walba waxay ku dadaalaan inay wax qoraan haday qoraayiin inay video sameeyaan haday YouTubers yihiin inay Allahumma salli ala Muhammad ay cilmi baaris sameeyaan haday dad researchers ah oo cilmi baarista yaqaan bimacnaa shaqada ay qabtaan si joogto ah dabada shaqadaas ka keensanaysa in waxyaalaha fara badan ay sameeyaan in qaar dahabi iyo cajiib oo qurux badan inay ka soo dhaxbaan qodob aad iyo aad muhiim ah oo dahabiyan ku sheegay qodobkan wuxuu ku leeyahay samee oo wixii aad doonaysay inaad noqoto iska dhigdhig ilaa aad gaadhisay heerkii aad doonaysay waxaad doonaysay inaad YouTuber-ka ugu quruxda badan noqoto adduunka ama Soomaaliyeed qoraaga ugu wanaagsan ee Soomaali ay yeelatay inaad noqoto doonaysaa wuxuu ku leeyahay kaba soo qaad inaad hadda aad sidii tahay noocaas oo kale iska dhig bimacnaa copy garee iska dhigdhig ilaa aad heerkii aad gaadhiso qodobkaasina waa qodob aad iyo aad runtii muhiim ah waxaanu ku leeyahay kaba soo qaad hadda waa tahay haddii tusaale ahaan kale aad laacib oo kale tahay tusaale yar football ku siinaya kubadda ciyaara haddii aad iska dhigto ragga ugu caansan adduunka ee kubadda ciyaara sidoo kale dhaqankooda kale aad qaadato kubadda marka la ciyaarayo waxa hubaala in aad noqonayso laacib ama player aad iyo aad u cajiib ah waayo tee waxaad copy gareysay cid aad igsanayso iyo mas'uuliyad aad rabto inaad gaadho taas si la mid ah meel kasta doonayso inaad gaadho ku dadaal inaad copy gareyso ilaa halka ku fiican aad ka gaadhayso arrinta waxyaalaha ka saacidiyaan waxa kamid ah in deegaanka aad joogto aad ka dhigto mid ka saacida inaad meesha iyada aad gaadho haddii markaad qolkaaga aad soo gasho qolkaagu yahay mid sawada dhex yaala oo xun oo waxa nadaafadiisu ay liidato oo busti halka yaalo oo macuustaad ooda kaga baxday halka ay taalo iftiinkiisu u liito arrintaas kugu dhiirigelinaysa inaad qoraal noqoto kugu dhiirigelinaysa inaad YouTuber noqoto kugu dhiirigelinaysa inaad noqoto qof aqoon iyo cilmi raadin ku fiican waa in deegaankaagu noqdo mid kugu riixayo waxa doonayso sidaas awgeed haddaad doonayso inaad qoraan noqoto miiskaad wax ku qoranaysid diyaarso waxa weeye buugaagtii iyo wixii aad wax ku qoraysay agtaada ha yaalaan haddaad doonayso inaad noqoto qof akhrista wanaagsan buugaagtaada ag dhigo meesha aad seexanaysid iyo meelaha inta badan aad fadhiisato waxyaalahaas marka waxay kaa saacidiyaan markaad deegaanka aad u fadhiisiso ama aad u diyaariso ood ka dhigto mid kaa saaciday yoolkaaga aad rabto arrintaas waxay keensanaysaa inaad hadhow meesha aad ku socoto si yaro fudud aad runtii aad ku gaadho halkaa marka ay sheekadu ay marayso runtii aad diyaarsatay deegaankaagii isla sidoo kale aad ku dayday inaad copy gareyso amaba aad iska dhigdhigto wixii aad doonaysay inaad gaadho marka iyada ah maskaxdu waxay u baahan tahay haddii ay meel afkaarta ay ka soo qabato ay weydo inay copy-ga bilowdo copy-gayn hore uga soo sheekeynay lagu caanamaalay ayd mar labaad ku celinaysa soo copy-yeysa dadka qoraayada jeceshahay soo copy-yeysa dadka YouTubers-ka jeceshahay soo copy-yeysa dadka cilmi waxa raadinta iyo researchers-ka ah ee aad runtii aad jeceshay sidoo kale inaad xog samayso soo koobiyeyso kadibna koobiyintu faa'iido qurux iyo amaantoona male ee intaada ku darso
ammaantu waxa weeye wixii aad soo koobiyeysatay inaad hab kale aad u dhigto isla sidoo kalena intaadii aad ku darto inaad nakadaad iyo dhadhankaagii aad dul saarto ayaa loo baahan yahay. cidda aad koobiyeynayso iska ilaali inaad wax walba aad ka koobiyeysato. waa inaad ogaataa cidda aan koobiyeynayo maxaan ka koobiyeynaya, maxaan ka soo xadaya, maxaan ka soo minguurinaya agtooda. marka waxaa xoog aynu saaraynaa markaana in aanad wax walba aanad koobi karin ilaa qofkii kale aad koobi u noqonaysaa. waxaad noqonaysaa hebelkii kale aad ku daynaysay sidiisii oo kale oo aan runtii dadkuna ma jecla qof kale inuu qofku koobi u noqdo. marka waxaad ku dadaashaa waxyaalaha aad qofka aad ku jeceshahay wax ka mid a soo koobiyeyso intaadana ku darso. halkan waxaan ku soo baranay cashar runtii aad iyo aad u muhiim ah kuu sheegaya sidee baad u noqon kartaa qof hal abuur leh oo creativity-giisa iyo maskax xulintiisu ay aad iyo aad cajiib u tahay. intaynu muuqaalkan kale aynu ku kulmayno mid kale oo eeg saasi. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hana ilaabin inaad subscribe aad tiraahdo channelka dad ka faa'iiday, page-ka follow aad tiraahdo haddii aad wax ka faa'iiday, like iyo share tan haddii nagala bakhaylin. aad baan ku salaamaya. salaamu calaykum.